waxa uu noqday xidig qof walba waxa uu haminayaa in uu sawir la galo. dad badan ayuu qalbiyadooda soo jiitay. Warbaahinada caalamka ayaa hadal hayo, mowduucyo kala duwan ayaa laga sameeyay. Waxaa gurigiisa ugu tagay dad dunida caan ka ah si ay ula kulmaan. magacaygu Cabdiqafaar Gamaadiid oo idilna meel walba oo joogtaan soo dhawaada. tani waa qisadii wiilkii yaraa ee ku dhashay qaab ka duwan qaabka Allah subhanahu wa ta'ala u abuuray bini'aadamkiisa, waxaana lagu magacaabaa Sanzimane Ali. qisada wiilkan waxay soo canbaxday sanadkii 2020. muuqaal video ah ayaa laga soo duubay asagoo sida xoolihii labada gacmood iyo labada lugood ku socdo, sida daanyeeradana geedaha u fuulayo. muuqaalkaas ayaa aad u canbaxay, waxa uu gaaray dad aad u badan. waqtigaas kadib waxaa bilaabatay qoyska wiilkan ka soo jooday in la raadiyo taariikhdooda iyo xogtoodaba. qoyskan taariikhdooda waxay soo bilaabatay sanadihii 1990-meeyadii. hooyada wiilkan dhashay waxay ahayd mar walba oo ay dhashay ciyaal waa ay ka dhimanayeen. 4 ciyaal ah ayaa dhashay, 4 tuba waa ay ka dhinteen. maalin maalmaha kamida ayada iyo ninkeeda waxay ku heshiyeen inay duceystaan. maamada waxay ku duceysatay oo Allah ay weydiisatay ubad u joogaya oo aanan ka dhimanaynin sida ciyaalkeeda horeba ay uga dhinteen. maamadan dhibaatooyin aad u badan ayaa kala kulantay dadka deegaanka ee kula nooshahay, ayaga ku jeesi jiray kuna dhihi jiray waxa ay dhashay ama haysataa daanyeer. dhibaatada kale ee kala kulantay wiilkeeda marka uu soo weynaaday waxa uu bilaabay inuu geedaha fuulo. ma hadlayo oo wax hadala kama soo baxayaan. raashinka ee dadka cunaana ma cunayo. raashinka kaliya uu cuni jiray wiilkan oo quudka u ahaa waa cawska. hooyadiina waxay u soo gadi jirtay mar walba caws si uu wiilkeeda ugu noolaado. laakiin wax walba waxay isbedeleen muuqaalka laga soo duubay sanadkii 2020. muuqaalkaas oo bedelay nolosha wiilkan iyo qoyskiisa. muuqaalkaas ayaa ku faafay social media meel walba ayuuna gaaray, waxaana bilaabatay wiilkan in loo gurmado oo tabarucaad loo fidiyo. dad badan oo caan ka ah baraha bulshada ayaa wiilkan la kulmay, sida muuqaal sameeyaha caanka ah ee Joe Hadab. taas ayaa sabab u noqotay in wiilkan loo gurmado. ganaayen guri aad u burbursan oo nolosha qoyskan waxa iska ahayd nolol aad u hooseyso. waxaa loo dhisay guri aad u weyn oo qalabkiisa ay u dhameystiran yihiin. wiilkan waxaa la geeyay iskuul khaas ah, waxaana la baray soo dhaxgalka dadka. baadiyihii iyo duurkii uu ku noolaa ayaa laga soo kaxeeyay, caasimadda ayaa la keenay si noloshiisa loo hormariyo. labiska ayaa laga bedelay, waana markii ugu horeysay uu xirto suud. wiilkan wajigiisa waxaa ka muuqata farxad ziyaada ah, maadaama noloshii hore uu ku noolaa ay ahayd nolol aad u adag. ciyaalka xaafadda uu kula nool yahay ayaa dhagaxayn jiray, waxayna ugu wici jireen dadka deegaanka daanyeer. maamada waxay u mahad celisay dhammaan dadkii saacideeyay, dadkii garab istaagay waqtiga ay nolosha ku adkeed, waqtiga ay la dhibaataysnayd oo ay la tacaalaysay wiilkeeda. haddana maanta wiilka noloshiisa way isbedeshay, waxaana sabab u noqotay muuqaalkaas laga soo duubay sanadkii 2020. qisada wiilkan waxay cashir iyo ku cibro qaadasho u tahay qof walba oo Allah subhanahu wa ta'ala wax weydiisanayo inuu u weydiisto qaab wanaagsan oo uu mar walba ka fisho Allah subhanahu wa ta'ala khayr. maantana muuqaalkeena aan kaga hadalnay qisada wiilkan intaas ayay noogu eg tahay. haddii aad channelka ku cusub tahay soo dhawow, subscribe noo saar si dhiirigelin noogu noqoto. waqtiga aadna siisana waad ku mahadsan tahay.